waxaynu tacsi u diri lahay walaalaheenii jaarkeenna ah magaaladeenna ah ee dabku uu baabi'iyey hantidoodii oo xalay hadda ayna maalqabeen ahaa caawa hadda ayna laga yaabo inay intooda badani caydh tahay dadka muslimiinta ay meelay joogaanba siduu nebigu sheegay waa ka mahali اljasadi اlwaaxid waa jir keliyahun ida اshtakaa cudw minhu tadaacaa lahu saa'iru اljasadi biاlxuma wasahar jirhka inta kalena xubinkaa xanuunsaday xumaddu ugu yeedhayaa ee wadaagayaa marka fi اlafraaxi wاlaxzaan yashtarikuun dhibka iyo dheeftaba way wadaagayaan dadka muslimiinta ahi waxaan filayaa dadka halkaa waxuun ka soo gelayeen mid ka shaqaysanaya miduu sii biilinaya mid saxaadayaba iyo miduu masruuf iyo biyo iyo xaqal ciid u dilay inaanay boqolaal kun oo qof ka yarayn boqolaal kun oo qof kama yaraa hantidaasina malaayiin dollar waa gaadhaysa masaafaddana waynu arkaynaa dee waa suuqyadii geeska africa u waaweynaa mid ka mid ah markaa 3 arrimood ayaa inagala gudban inaynu kaga qayb qaadano hawshaas intaa wax ku dhaceen mooyaane inteena kale ka soo hadhay ta u horeysa waxa weeye adducaa inaynu u ducayno oo ducadu dadka muslimiintii markay kala maqayin waa la isu aqbalaa ducaau lgaa'ibi cala algaa'ibi mustajaab labada kala maqan ducadooda waa la isu aqbalaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam haddaad walaalkaa u ducayso adiguna ducada malaa'igtaad ku helaysa oo malag baa ina odhanaya aamiin walaka bimil allaha ka aqbala adiguna inta aad ugu ducaysa in laeg baad leedahay ducadaasi aad bay muhiim u tahay oo welibana waa waktigii ducada loo rajo badnaa in la aqbalo ramadaan iyo afurkii iyo soomkii iyo salaatuleylkii midda labaad aynu kaga qayb qaadanaynaa waxa weeye dejin ducada dejin baa raacaysa dadka in loo sheego qofka muslimkaa inuu dheer yahay ummadaha shisheeye inuu rumaysan yahay qadarka qaladbaha iman karoo sababba dadku ha u noqon karaan laakiin wax adduunkan ka dhacoon ilaahay sii qadarin ma jiro markaa qofku markuu qadarka rumaysan yahay yartaaxu baalo waxaan inaanu gafaynin buu ogaanayaa ee kollayba uu sii qornaa marka dejin baa loo samaynayaa waxaa la leeyahay kollayba wuu qornaa sidaa ay u qorantay inaad dhiman doonto markaa qadarka rumee taa saddexaad aynu ugu daraynaa waxa weeye deeq in dee dadkeenna wax u soo hadhay inaan waxba gaadhin debadi iyo guuda meel kastoo la kala joogaba dee dadkii la taageero dabaqadahooda kala duwan qof wax buuran buu haystay qof meel dhexaad buu ahaa qofna in yaroo dee masruufka inuu ka soo haraabay ahay markaa qof waliba wixii uu helaya inuu kaga qayb qaato amaah iyo aaqiibo labadaba oo dadka qaarkood waxbay bixin karaan oo wax waynu siin karnaa waxaan siinta ka dhicin waxa la yidhaahdo amaahda oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay qofka haddaad 2 jeer u xamaahisa inay u dhiganta adoo siiyo oo kale waanay dhici karaysa haddaad qofkii siiso amaah oo uu ku shaqeeyo 50% ay wax u soo saartood mar labaad ugu celiso 50% kale ay u soo saarto dee wixii aad amaahaysa wax la-eg baa ugu soo baxay waa adoo siiyoo kale dadka had iyo jeer ganacsadahana ama qofka ganacsadahayna waa xirfad le weeye aqoon buu leeyahy marka haddii wixii faraqabsiga ahaa loo dhiibo siduu markii horeba u bilaabay ayuu u bilaabi doonaa halkii u gaadhsiin doonaa labada arrimood ayaynu isugu daraynaa waa 3 arrimood aan idhaahdo ducada iyo dejinta iyo deeqda way ka soo kaban biidn illaahi tacaala xilka u weynina wuxuu saaran yahay ninka magaalada u sarreeya iyo ninka waddanka u sarreeya labada qof waxa ay iska kaashanayaan dadkan in guryo loo sameeyo oo guryahoodii si habaysan oo hagaagsan loogu sameeyo oo weliba iyagoo dabaqyaha oo isa saara dowladdu wax bixiso dadkuna wax bixiyo dadkii hareeraha deganaa ee laga cabanayay suuqan jidadka xidheen dee inay sidii ku soo noqdaan maaha meesha waa in dabaqya laga dhigaa dadkii loo waasiciyaa dhul bannaan baa jira magaalada dhulkaana la habeeyo suuqyo kala fidsan laga dhigo waxaa la beedkaaga sallad keliya lama wada saaro beedkaaga haddaad sallad keliya wada saarto mar qurub buu burburayaa adduunyada waxaa la sameeyaa magaalada waa la kala dejiyaa
oo suuqyo badan baa la sameeyaa mandiqad waliba suuqeeda ay leedahay marka meelo badan oo iska xidhan baa jira meelo badan oo bannaan baa jira dhulkaasaa la dhisayaa xataa dadka lacagta laga ururin karaa loo dhisayaa marka wixii iscidhiiraya waa in la furfuraa si wadooyinka ilaahay u yimaadaan marka meelihii ay ku ganacsanayeen dadkan in la tuuri maayo ka kaco iska taga un arrintu maha way soo taagan yihin marka wax loo dhiibo in la yidhaha halkana ku ganacso baradanna fadhiiso beyd hagaagsan isagaaba marka dambe mustaqbalka dhisan doona marka waxaynu u baahannahay waxaa la yidhi qofka waxa soo socda aan garanin waxa jooga ma garto aragti dheer baynu u baahannahay iyo istaraatiijiyad maamul iyo shacabba la iska kaashado intaa marka aan ka soo gudbo oo xadiiثulxaala warka imika taagan iyo inaynu wax ka odhanayno kolley galabtana culimadu shir jaraa'id bay qabteenoo mowduucan unaanu ka hadlayno intaa markaynu ka soo gudubno tii kalena way inoo sii socotaa abaarta iyo in wax laga qayb qaato ilaahayna waxaan ka baryayaa ducada badan inuu naga aqbalo sidii kal horeba uu roob fara badan inoogu shubay ramadaanta inuu imikana inoo bilaabo ayaynu magan iyo marti uga naho aynu baryaynaa intaa walaalayaal waxa sii raacoon kusoo gebagabaynayaa waa fursad kaloo ilaahay uuna siiyey haddana intaasoo ramadaan un baynu soo lignay oo aynu soo taagnay haddana ramadaan baa bilatay haddana waana kan waa fursad kaloo ilaahay uuna siiyey wanabluukum bishari wاlkhayri fitna ilaahay baa wuxuu ihi dadka shar iyo khayrba waan ku imtixaanaya sharku waa balaayooyinka inagu dhacayo waa laynagu imtixaanaya bal inaynu ku sabirna iyo in kale khayrkana waa laynagu imtixaanaya diin iyo dunyaba wixii aynu helo markaa dadku cibaadadan horta le ilaahay uu ku waajibiye faradka way ku imtixaanayn imtixaanka midina wuu ku dhacayaa oo waa kaa hungurigu uu qaadanayo ee hamaddu ay qaadanayso ee iska cunaya iska liqliqaya sabri karila ee soomi karila qofna waa qofkaa soo diyaar garoobaya ilaahay raali gelinaya wixii loo abuuray garanaya imtixaankii ka gudbaya marka waa inaynu u fahamnaa ayaamahan cusub ee layna siiyey ramadaan inay tahay waxaanay walaalaheennii mootanaa ee kal hore inala soomay ee aan sanadka inala soomin fursadaanay helin weeye oo qaarkooda xabaasha ay ku tamaniyayaan oy leeyihiin haddaan joogi lahaa maan dayaceen cibaadadii fursaddaa mar kale haddii la ysiin lahaa nabiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam inay taasi fursad tahay buu ku sheegay xadiidkii saxiix ahaa laba nin baa ayaa soo islaamay oo mid baa hore u shahiiday dagaalkii gaalada ku dhintay kii kalena mudduu ka dambeeyeyoo uu soomay uu salaaday markaasuu kadib dhintay isagii baa ka janno weynaaday nebigu wuxuu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam dee intaasoo jeer buu soomo intaasoo salaadood buu tukado soomkii iyo salaaddii uu shahiidka kala dambeeyey ayaa ilaahay derajadan dheeraadka uu ku siiyey marka dadka qofka ayaanka badani waa qofka garanaya ayaamo kasta oo kuu soo biiraa inay yihiin fursad ilaahay uu ku siiyey oo laynagu imtixaanayo taana aynu ka faa'iidaysanno sidaynu uga faa'iidaysananana fii ma bacdu in shaa allahu tacaala ayaynu wakhtiga dambe aynu isu sharxi doonaa allah ina barakeeyo cibaadadana allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu